saaka waxaanu furnay tartankii lagu tartamayay qalabka loo doonayay wadada Ceergaabo waxa ku soo tartamay oo bidhka qaatay laba shirkadood labadii shirkadood mid saaka way habsaantay waqtigii loogu talagalay ma iman waxa ku soo tartantay shirkadda la yiraahdo Allied Development oo saaka ku guuleysatay mashruuca wadada Ceergaabo qalabka loo doonayo shirkadda waxaan kula dardaarmaynaa inay qalab tayalan ay qaranka u keeni doonto insha Allah taala nasiib wanaagsan waanu rajeynayaa waxaan leenahay ilaahay ha ku barakeeyo mashruuca aad ku guuleysatay aad iyo aad bad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa halkan shirkadda ku guuleysatay maanta qandaraaskan beebka la dhigay wadada Ceergaabo iyo isku xidha iyo Togdheer taasoo ah Allied Development Construction waxa uu soo tartamay laba shirkadood taasuma soo hadhay oo ku guuleystay 950 baa silin bareysku ahaa 938 ayuu keenay waxaanu markaa baadhnay maanu eegin lacagtii uu duldhigay waxaanu baadhnay waxyaabihii soo qabtay waxaanu ka helay mataqaan inuu profilkiisii waxyaabo fara badan oo ay ka matay bridge-kan ku hor yaalla meesha la yiraahdo xarf horteeda buundooyinka laga sameeyay in dawga shiiq iyo dhamaan wixii badnaa uu qabtay markaanu aragnay saasoo ku helay waxaan ugu baaragaynaa in ilaahay mataqaana sida ugu guuleeyay uu hawshan u qabto waxaanu faraynaa shirkadda ku guuleysatay inay sidii ku hore wax u qabatay si ka tartar badan ay u qabato ayaanu ka codsanaynaa dadkii wax ka sheegi jiray wadada Ceergaabana waxaanu sheegaynaa ku quuso quraan jawaan leenahay arka maanta in mataqaana la marayo buudooyinkii waaweynaa biyoos mariyo dhankiisa gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaanu tilmaamay inay aad u salaamaya guddiga qandaraasyada qaranka gudoomiyahooda gudoomiye ku-xigeenka agaasimaha iyo dhammaan xubnaha guddida waxaan aad iyo aad u buurinayaa aadna u soo dhaweynayaa shirkadda ku guuleysatay qalabkan buundooyinka wadada Ceergaabo Allied Construction Company waxaan ka rajeynayaa inay shaqada sidii loogu talagalay u qabato ugana soo baxdo hadiyo goor waxa weeye laba shirkadood baa ku soo tartamo qaatay bidhka sida gudoomiyuhu sheegay midwaymo weydo xilligeedii bay ka habsantay tii joogtay ee runtii u soo dhawaatayna waa ku guuleysatay waxaan si wanaagsan oo cadaalad oo sax oo xaq ah inuu dhacday baan arkaa oo qabaa oo inuu dhacday waxaan kaliya hadda ka nool waxa weeye shirkadda inay sidii loogu talagalay qalab tayale shaqo tayale iyo mataqaana wax qabad tayale inoo fuliso annaguna waxa weeye waa mar walba waan ka wareynaa gacantana ku haynaynaa